بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن داوديال halkan waa telefishinka caalamiga ah Cable TV xaruntiisa magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray waqtigii aanu hadahan oo kale idin soo gudbin jirnay barnaamijkeena haladay oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Nuur Caraale Duur iyadoo aan wareysigana u dhici doono qaybo kala duwan iyo siyaabo kala duwan wasiirka oo imika kamid ah xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ah mas'uuliyiinta xisbiga u matasha arrimaha doorashooyinka iyo gudiyada isku dhafka ee asxaabta mucaaradku haatan ay ku midoobeen wasiirka ayaan horta ku soo dhaweynaya mudane wasiir ku soo dhaw studio Cable TV Maxamed Nuur Caraale Duur wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliland imikana kamid ah xisbiga wadani su'aalaha ugu muhiimsan ee imika taagan waxa kamid ah doorashooyinka dalka oo aduguna doorashadii golaha deegaanka ugu horeysay ee qabatay xukuumadda Soomaaliya aad wasiirka arrimaha gudaha ka ahayd doorashooyinka imika oo haddana xisbi mucaarada aad ka mid tahay bal sideed u aragtaa inay ku qabsoomayaan sidee gudiyadii noo shaqeeyaan sidee bad mucaaradka isku kaashataan arrimaha ka soo baxayaan imika ay waliba culus yihiin doorashooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii waan dee salaamayaa bahda Cable TV iyo Maxamed Cabdi hortayda fadhiyaba waxa kale salaamayaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan doorashooyinka iyo asxaabta qaranku waa dariiq nabadgelyo loo abuuranay si xilalka qaranka si degan oo habsami dawladeed ku jirto loola kala wareego waa nidaam dastuuri ah oo lagu aasaasay Soomaaliland shuruucdeeda in xisbiye jiraan oo mucaarad jiraan oo rayiga lagu kala duwanaada waa saldhigga dawladnimo doorashada maanta waqtigeeda la galaya sharaf bay u tahay xukuumadda inay ku qabato muddadeedii waxa kale sharaf u ah xukuumadda doorashooyinkii hore ay soo qabatay waxa muuqda maanta inaan doorashadii aan loo diyaar garoobin dhinacii xukuumadda mas'uuliyaddu saaray مسؤولية ولا يسكون ريحة مسؤولية قرن كري واحد دوش أو صارنتي مدحوينا مسؤولية كبحسن الصومالي لان كنت كجرتها ما جرته مدحوينها سلا دور الشدة ولا قبائل القبط سلا شرف أطاي سلا أنت الله شقينا سلا شرفته قدي دور شوين كمان مسؤولية وان قدر الدونا ونص السعوديين قدي دور شوين كأنه قدروا وحا مدحوينها صارن مسؤولية قرن كانوا دون سيدو دستور كاسي بقايو meel ka baxsan ma jiro waayo madaxa dawladda waana mideeya waxa timi komishanka qaranku waa guddi loo saaray oo farsamo oo la xisaabtankeeda madaxweynuhu ku daba joogo qabanqaabada iyo qorsheynta iyo dabagalka farsamadana waxa la guddida doorashooyinka qaranka qabanqaabada iyo toosinta iyo qorsheynta iyo ku dabagalka hawshaasi inay fusheen madaxweynaha leh marka mas'uuliyadana cid kale lagu riixi maayo cirana mala golo wakiilna mala guurtina male waxay saarantay madaxweynaha wixii farsamo ana komishanka laga rabo marka inay doorasho qabsoonto waa mas'uuliyadda xukuumadda maanta ma muuqato haddii muuqaweydana waxay noqonaysaa xil gudasho la'aan waxay leedahay constitutionka ku cad oo marka maxay noqonaysaa waxa weeye haddii xukuumaddu xilkeeda gudaynaydo dee qodobka dastuurkay ku caddo waxa weeye in madaxweynaha maamuuska laga qaado waayo xilkiisii buu gudan yahay maantana xilkani isku tuurtuur male waa qadiyad sharciya waa qadiyad nidaamiya madaxweynuhuna markuu mucaaradka ahaa wuu diidi jiray in doorashadu dib u dhacdo maantana inuu qabtaa isaga halkiisa saaran meel kale laga dooni maayo marka loo eego xaaladda waddanka sanadka ugu dambeeya madaxweynaha xilka xayuubin laguma samayn karo qodobkaasina waxaad sheegaysaa in madaxweynaha xilka xayuubin oo kale lagu sameeyo hadduu mas-uuliyaddiisi gudan waayo marka doorashooyin hore soo baaqday baa jira golihii wakiiladeed ka mid ahayd baa 2005 ilaa 2015 aan la dooro muddo 10 sanadood golihii deegaanka horan muddo 10 sanadood la dooro doorashadii hore madaxtinimada Soomaaliya ku soo baxay madaxweynuhu 2010 ayaa muddo 2 sanadood dib u dhacday marka xil gudasho la'aan cid xilka lagama xayuubin marka muxuu kaga duwayay madaxweyne Soomaaliya iyadoo dastuurku farayni waqtigan in laga qaado maxamed waxna waa sharci oo waxay noo qoran
maxna waxa weeye khaladaad soo jiray oo dee iminkana jiraan aynu kala saaraynaa labada waxaa halkan inoogu qoranaynu dowladnimada ku dhisanaan ka hadlaya haddii xukuumadda xilkeeda gudayn weydo waa in qofka xilka laga duwaa laga qaada waqtiyada ku habboon iyo sida sharcigu dhigayna looga qaada maanta waxaanu ka tashanaynaa xisbiyadii mucaaradka oo dhan isaga imanayaan oo guddidan ku jira anigu guddi doorasho u qaabilsan kuma jiro guddiyadan ku jira waxa weeye guddi wada tashi oo midaynaysa mucaaradkii waxaanu ka tashanaynaa maxaa doorasho loo qaban waayo waxa kaleynu eegaynaa war ma sharcigeenu eegnaa shuruucda dalka u dejisan baynu raacnaa mise khaladka soo jiray miyaanu dhammaad lahayn waxaynu eegaynaa golaha wakiiladu oo aan ka tirsanaa 6 sanana waan fadhiyay 10 uu maraya hadda waa muddo dhaaf mas-uuliyadda yaa leh golihii deegaanka 10 sannadood baa doorashada lagu qabtay mas-uuliyadda cid baa lahayd waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa sharciga ayaan doonaya inaan ka hadlo war waxa weeye in doorasho dib u dhacdo oo golaha wakiiladu 10 sannadood fadhiya waa doorasho la qaban waayo doorashada waa hadii ay qabtaan yaa fulina ee mas-uuliyadda leh wataataynu isweydiinayna mas-uuliyadda waxa leh xukuumadda loo igmaday oo fulinta leh qaabkay u qorsheynayso iyo siday u dhigayso iyo waqtigay qabanaysana sharcigu ugu cadi waa inay waqtigeedii qabsoomaan maxaa garab taalla oo maanta lagu doodayaa wixii shalay annagoo kulliyaanu ka caban jiray ayaa maanta lagu celinaya waxaa la leeyahay dee doorasho may dhici jirin dee miyaanu ogolay waanu diidi jiray maantana waanu diidaynaa marka waxa weeye oo inoo sharciya oo inoo nidaama in doorashada waqtigeeda ku dhaco maxamed nuur caraale doorashada la doonayay inay waqtigeeda dhacdo xukuumadda mas-uuliyaddeeda kasagoo asxaab mucaarad buu waddanku leeyahay asxaabta mucaaradka ee xisbigaad ka mid tahay waddani may muuqanin kaalintii firfircoonayd ee xisbiga kulmiya waqtigaa ku lahaa markii doorashooyinka dib loo dhigayay ama khilaafkuu doorashooyinka ka muuqan jiray kaalintii loo baahnaa in uu ka qaato marka iminka loo eego doorashada oo cidhiidhi waqtigeedii uu ku dhowey muddo 3 bilood ay kaarsantay taasi miyaan oran karin asxaabta mucaaradku waxay abuureen fursadda ah in 3 bilood ugu dambeeyey in doorashada muran gashay la soo gaaro xisbiga ka mid tahay horaan u sheego axsaabta qaranku waa institutionno inoo dhisan oo sharciya haddii hogaamiye isku kalsooni jirana wuu dhisi lahaa wuu korin lahaa wuu barbaarin lahaa wuu gacan qaban lahaa waayo dowladnimada ku dhisan maxaad uga jeedaa hogaamiye isku kalsoon waxaan uga jeedaa qofka maanta ummadda hagaya isagaa mas-uulka ama caamaan xisbiyada qaranku madaxweyne kale ma leh taageero iyo toosin iyo gacan qabadba xukuumadday ku leeyihin maanta xisbiyadu way dadaaleen intay qaban karayeen waddani doorashada wixii ka soo gaadhay ilaa qaskii baarlamaanka ka socday wuxuu u dhacayay doorasho diid iyo doorasho doon ayuu dhacayay waa laysku qabto waa lagu dagaalamay maantana xisbiyada mucaaradkii waxay u midaysan yihiin inay doonayaan doorashada iyagu ma qaban karaan dhaqaale kuma taraan laakiin waxa weeye inay u diyaar garoobaan in doorasho dhacdo inay ka hadlaan oo sheegaan waa laga hadlay waa la sheegay waa u diyaar inta baarlamaanka uu ku leeyahay xisbiga wadanina ama xisbiyada mucaaradka ku leeyina waa u diyaar in doorashadii qabto dhinacoodiina way galeen laakiin mushkiladda jirtaa waxa weeye xukuumaddii waxay majority ku leedahay golaha wakiilada waxay majority ku leedahay golaha guurtida waxay gacanta ku haysaa golaha xukuumadda deeyadiiba hortaagan maanta dubudhaca maanta yaalana mas-uuliyaddeeda lama wadaagay cid baa qaadanaysa oo gacanteeda ay ku jirtaa markaa dhibtii la geliyey iyo dubudhacii la geliyey ayaa doorashada ku jirta laakiin dadaal ku baaqsaday xisbiyada mucaaradka ma jiraan gudoomiye xisbiga wadani baa gacanta ku haya golaha wakiilada aqlabiyadii xukuumadda ee xisbiga kulmiye iyo wadani way isku dhow yihiin gudoomiyuhu isagaa jaangooya ajandayaasha golaha wakiilada marka xildhibaanada lasoo hordhigay haddii dadaal halkaa laga geli lahaa waqtiyadii hore miyaanay kuula muuqanin in doorashada waqtigeeda ay ku yimin lahayd dhinaca kalena marka loo eego in gudoomiye xisbiga wadani weli yahay gudoomiye xisbiga golaha wakiilada uu yahay taa lafteeda miyaan la oran karin xisbigii wadani diyaar maaha doorashada adugu aad ka mid kahay waxaan ku saxaya maxamed ugu horeyn gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu gudoomiyaa talada ay gaadhaan mudanayaashu
aqlabiyadu gaadho wixii golahaasi aqlabiyad ku gaadho ayuu gudoomiyuhu gudoomiyaa ma codeeyo mana doodo mana soo jeediyo ajandaha golaha wakiilada lagaga doodayo ajandaha isagoo proposal la soo dhigaa wixii goluhu qaataan ayuu lagu gooyaa sidoo kale golaha iyo dowladnimada maanta golaha lagu riixayaa madaxweynuhu saddex aqal buu madaxweynuhu yahay dowladnimadu ka koobantay waa duqii dowladnimada golaha baarlamaanka golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka saddexdaba isagaa odayo waxa dastuurku siiyey xataa haddii golaha wakiilada khala jiro ama golaha xukuumadda khala jiro ama garsoorka uu jiro awoodu ku saxaabinaya dastuurkaas saaray ku cad marka la canaananayo xukuumaddu ay canaananayso golihii wakiilada dowladnimadii baan jeex ka mid jeexii kale la doodaya marka ciro roor gaara kuma leh isagoo gudoomiyihii wadaniya oo gudoomiyihii baarlamaanka wixii golahu gaadhay buu ku khasbayay inuu gudoomiyo waxaa timi tirada mudanayaasha aan su-aalahaagii ka wada jawaab tirada mudanayaasha golaha wakiilada mucaaradba ku leeyahy waa 20 baa la sheegay maaha aqlabiyadda waxay jirtaa xagga xukuumadda waad ogeyno wixii dhibaato iyo qas xukuumaddu ka ridaysay baarlamaanka iyo xoogii lagu marinayay shuruucda iyo carqaladii la gelinayo dabadhiga doorashada waxaa gelinayay baarlamaanka oo majority ay ku leedahay xukuumadda waxaa timi qodob aada looga hadlo oo ah gudoomiye ciro oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada wuxuu hayaa xilkii wadani ee gudoomiyaha nacam labadiiba isku haya waa laga dooda qadiyadda marka laga doodayo waxna waa sharci waxna waa sheeko booska gudoomiyenimo ee golaha wakiiladu maaha shaqaale dowladeed waa political boss su-aashu waxay tahay sharcigeena loo ogol yahay qof political boss hayaa oo boos siyaasadeed hayaa xaq looga yeeli tartamo xaq u leh cidiisa ma jiro kuwiis casilaya sharcigu dhiga waxa weeye shaqaalaha dowladda wuxuu la mid yahay gudoomiyaha golaha wakiiladu xaqa dastuuriga ee madaxweynaha isagoo xilka ayaa la siiyey ayaa gudoomiyaha wakiiladuna xaq u leeyahay inuu tartamo laakiin qodob baa jira ma isku karayaa inuu tartan galo gudoomiyaha golaha wakiilada labadaa ma isku kari karayaa waxaa u fudud gudoomiyaha golaha wakiilada inuu u madax banaanaado muddada doorashadu socoto waana u madax banaanaanaya xisbigiisu way kula taliyey taageerayaashiisu way kula taliyey يعني شغلته كتجي u madax banaanaanaya waqtiga doorashada xukuumaddu sumato waanu ku ballan qaaday shaqadu laakiin inuu isku hayaa wax diidaya oo shaqada baarlamaanku ka tagay wuxuu ka tagaya oo u madax banaananaya tiisa xisbigu gaar noqonaya waqtiga doorasho la cayimo ee xukuumaddan dabada ay sii deysay cadaato commissionkuna shaqadiisii u madax banaanado marka labaynu kala saaraynaa warta xaq buu leeyahay lagumana canaanan karo maxaad u fadhidaa waxaad u fadhidaa dee adaa doorasho lagaa rabay qabo madaxweyne qabo doorashada golaha wakiiladu inay fadhiyaan kuma cambaaraysna laakiin doorasho waa la qabtaa doorashada mas-uuliyadeedana cid baa iskale lama wadaago layskuma ruuxi karo cid aan gelin oo aan qabanna gacanta looma gelin karo laguma eedeyn karo qodobna waa khalad maxamedo waxaa khalada madaxweynaha doorasho dhammaystiran baa laga rabaa lacagtiina waan bixiyey commissionkiina waan magacaabay xilkii ka furan mayso haddii kuug raashin bisil laga sugaayo dabkiina waan shiday biyihiina waan keenay raashinkiina waan agdhigay socon mayso madaxweynaha shaqo dhammaystiran baa laga sugayaa waxaa laga sugayaa doorasho waqtigeedii iyo saacadeedii iyo maalinteedii ku qabsanto doorashaa laga sugayaa inuu dabkii doorashada yidhaha waan shiday madaxweynaha laga sugi maayo waan gartay kalsoonida doorashada ku qabtaan maxay tahay doorashadu waa ciyaar ka dhaxaysa xisbiyada qaranka kulmiya waa xisbi qaran ucud waa xisbi qaran wadanna waa xisbi qaran doorashada waxaanu ku qabnaa inaan nasiibkayga ka qaado kuma qabno annagaa guulaysanayna noo qabta maaha ciddii doontaa ha guulaysatay waa doorasho qabta marka kalsoonidanu ku qabnaa waxa weeye tii doorasha lahaan jirtay waxaanu kalsooni ugu qabnaa inaanu galno oo tartano oo helno waxaa kaleenu kalsooni ku qabnaa inaanu tartano oo nalaga helo oo aanu u haaniyeyno ciddii hesha marka xaqa doorashaanu ku doodaynaaye xaqa helidda ku doodi mayno waxaanu ku doodaynaa xaq noogu leenahay in doorasho naloo qabto jawaabtu waa haa laakiin xaq kuma doodayno waa dee odayga looga kac kursiga annagaa ku fadhiisanayna maaha la xurkayo way aan halka kugu soo noqdo doorasho marka la doonayo xisbiyada dimuqraadiga ah ee wadanka ka jira ee saddexda abay ka bilaawata
musharaxiintii madaxtinimada doorashada ee tartami lahaa golayaashii dhexe ee xisbiyadu ilaa imika ma dooran musharaxiin cadaan u toosa marka musharaxiin carabka lagu dhufto asxaabta mucaaradka qaar ka mida laga reebo ma jirto ilaa imika xisbigaagii wadanika ma jirto musharax tooso cadaan oo golihii dhaco fadhiistu yidhi sanadka dambe u tartamaya xisbigii kulmiye oraahda saxda ah ee ay ku hadlaan in madaxweynuhu musharaxii tartamaya mooyaane laakiin golihii dhexe shirweynihii lagu soo dooranayay madaxweynihii ku-xigeenka la iskugu mayno taas miyaanay muujinayn inaanay asxaabtiiba diyaar u hayn in iyaga laftoodii ay doorashadii la galo oo tani tahay uun qowda maqashii in doorasho la doonayo laakiin gudihii aan diyaar looga ahayn maxaa taa loo filin waay dhismaha xisbiyadu waa golayaasha dhexe sidaad xustay oo haddii xisbigu koongareeskiisiina qabsado golihiisii dhexena uu dhisto qaab dhismeedkii fulintii golihii dhexe qaab dhismeedkii xisbigaasi waa dhammaystiraya waxaa dhiman magacaabista musharaxa waxa xaqu leh oo maalin codayn karaa golaha dhexe musharaxii iyagii ee xisbiga wadani markaanu nahay musharax iyagii waa muuqdaa laakiin maalintii codaynta gacanta looma taagin howlna maaha waa maalinta musharax iyagu waa cabdiraxmaan cafo uu muuqda waa muuqdaa ma qarsoona isaguu noqon doona insha allah bidmillaahi baari haddii lala tartamayana waa furan tahay dareenka anigu ugu jirayo golaa dhaxaan ka mid ahoo cidan codaynayaa baan ka hadlaya waana muuqdaa ilaa hadda cid ku garbiyaysa ma muuqato laakiin maalin baa loo codaynayaayo maalintaa waa u codaynayna qolada kulmiye aada xustay waxaa kala duwan musharaxay sheegayaan iyo runta waxaan maro badan ku celiyey madaxweynuhu musharax maaha madaxweynuhu maxaad uga jeedaa arrinta madaxweynuhu musharax maaha horena wada tir maxaad uga jeedaa laba jeer baan idhi maxamed cabdi maalintan wadani ku biiray waxaan idhi madaxweynuhu wuxuu qabanayaa doorashuu ka dhexyaa ayuu qabanayaabaan maalinta universal waraysiga siiyeyna waxaan madaxweynuhu musharax maaha waan sababaynayaa maanta haddaa mar saddexaad igu celisay madaxweynuhu hal siyaasadeeda u hadhay ma jiro waa madaxweyne hawli uma hadhin oo oday waayeeloo wuxuu qaban karaaye soo qabtay hunguri kale waa doona uma hadhin wuxuu marayaa madaxweynuhu halkii ugu sarraysay marka dhinac kasta laga eego jarajarada halkii ugu sarraysay ku taagay tallaabo u hadhay oo u qaadaa ma jiro tallaabo kasbu qaadana waa gardar madaxweynaha wuxuu ku taami jiray haddii ilaahay madaxweynaadkaa ka dhammeeyo inuu oday magac leh maalmaha u hadhay noloshiisa uu noqon doono uu garanayay inaan meel u hadhay ma jirin waayo jaranjarada halkii u sarraysay buu taagay markaa madaxweynuhu meel u dhaqaaqaa ma jirto hadduu tartamo waa u guurdar hadduu helo waa u guurdar haddii laga helana waa u guurdar waxa sababtu tahay wax waliba way buuxsanaan madaxweynaha wax u hadhay baan jirin marka shaygu buuxsanana dhignaanshuun baa xiga aan kaa dhex galo halka sawtan wadankii iyo dalkii iyo dadkiiba baahidii meel walbaa isqabsatay hadday wadatay hadday dhaqaalatay hadday caafimaad hadday waxbarashatay inta la qabto inta ka badanee harsanuun ay dhimantahay ee intaasoo dowlada hadday iska wada qabtaan baahidii taaganu sidaa miyaanu qeybkaanu wixii uu qabtay inu sii wadi karo maxaa guddaro ka dhiganta baahidu ma dhammaata maxamedow madaxweynaha wax ka dhimani ma jira hawl baa hadhay soo maaha waxaad xusayso hawl maaha qofkaynu ammaanayna maxay naana marka adiga shaqadaada lagu amaay maxaa le maxamed cabdi waa howlkar bale waar hawsha haddii karti weydo yaa qabanaya madaxweynaha hawl kuma hadhin because kartidii iyo wuxuu soo qabanayay madaxweynuhu soo dhameeyey laakiin maanta talada garab taalla siinaayana ma seegaran talada garab taalla waxa weeye dad baa la talinaya oo ku xiran madaxweyne waxa uu hadhay han siyaasadeed waxa uu hadhay hunguri waxa uu hadhay damac intanaa damacooda waayeysa oo ilaa ay hulaabtaan sharafta madaxweynaha aan helayn kuwaasaa kula talinayo inuu tartamo sii joogeen madaxweynaha tartan kuma hadhin tartan madaxweynaha kuma hadhin waxaa ku hadhay
inuu magac iyo maamuus maanta qaato taariikhdana halkaa ku gebagabeeyo doorasho wanaagsan oo ummadda u qabto dabeedna mandeelo uu noo noqdo taariikh wanaagsan buu leeyahay ilaahay buraanka ka xumaan baa noogu leeyahay maxaa u diiday inuu doorasho ku hadhay hadduu isagu yidhi doorasho igu hadhay waan tartamayaa uu ku celiyey uu waan caafimaad qabaa waan shaqaynayaa waan karayaa kartideedii dadaalkeedii waxeegii baan leeyahay ummadaydan u shaqaynaya u dhammaystiriya shaqadooda maxaa diiday in wax ku hadhaan labaa diidaysa haye madaxweynaha waa la doorto muddaa diidayso muddadii la doorto bay dhammaatay waa koob talabaadii diidaysaa waxa weeye madaxweynahan ku idhi waar waa u dhammaatay waktigii baa dhammaaday hawshii baa dhammaatay magacii baa dhammaaday muuqaalkii baa dhammaaday madaxweynuhu halkii u sarreeyuu gaadhay baan ku idhi halkii u sarreeyuu gaadhayna deg inuu soo daadego uma baahna inuu sii socdaa buu baahaya ninkaan waxba u hadhin xagguu soconaya waan gartay markaa waxaynu u baahannahay inaynu tilmaano idhaahno waktigii lagu doorto madaxweyne aad ku gebagabeynaysa madaxweyne waa dhammaatay waa kugu filan tahay waxa wanaagsan doorasho qabo taariikhdu dabadeedna ha ku xusto ha lagaaga sheekeeyo jiilashii dambe khaladaad soo yaalay madaxweynihii dabargoyn lahaa khaladaadku ka caban jiray madaxweynihii daweyn lahaa doorashada madaxweynuhu wadda qodaxlaba u soo mara wadadii qodaxda lahayd uu soo maru shalay ka caban jiray inuu qodaxdii ka xaadho ilaa war aniga doorasho adigoo mahadsan aan hal qodob ku iftiimiyo cigaal 93 waa la doortay marxuum cigaal allah yarxamo haddana 97 dib loo doortay labada goor buu tartamay madaxweyne riyaale 2002 xilka qabtay sanadku meel gaar u qabtay 2003 baa la doortay haddana 2010 buu dib u tartamay muddo kordhintii kadib madaxweyne siiraan 5 sano kaliya talada dalka haya maxaa u diidayeen tartamo ee adigu aaminsantay ra'yigaagu inaan tartami karin horta waxaa dee soo bixi doonaaba hortiina imane oo maanta dee halkan aynu ka hadlaynaa berri cid baa noolaan oo gaari madaxweyne musharaxma aan ka gudbo xisbiga kulmiye oo xisbiyada aad sahaysaan hirdanku idinka dhexeeya oo u muuqda inaad dee xisbiyada iskugu xifiltanka badanaad tihiin waxaa jira mudanayaal kale oo guddoomiyaha xisbiga leh oo laba wasiir leh oo iyaga laftoodu hankaa siyaasadda iyo tartanku ku jiro oo idinla tartami doona mustaqbalka sida iyagu sheegaan mar walba wasiirada tartamaya mise wasiirada iyo guddoomiyaha xisbiga iyo dhammaantoodba ay hankaa siyaasadda ay wada leeyihiin muxuu xisbigiinu ka aaminsan yahay aan su-aal maxamed oo adiga dibka ugu celiyo waxaad hadda igula doodaysay in madaxweynuhu musharaxya waxaa kaloo imanka weydiinaysaa adigaaga maxamedi inay musharaxiin kale xisbiga ku dhex jiraan oo ay wasiiradii yihiin aan su-aashayda kuu saxo aan su-aashayda maxaa keenay mustaqbalkan kaala hadla su-aashaydu waxay u dhignayd inay mustaqbalka idinla tartamaan ayay u dhignayd anigu waxaan sugayaa haddaba anaa rayigayga ku siinaya inta ku jirtaa waa intaba madaxweyne musharaxa xilka musharaxnimo wasiirkiisu kuma hongureeyey calaamadaha inaan madaxweyne musharaxayn bay ayay kow ka tahay annagu waxaanu sugaynaa rayiga wanaagsaninaya madaxweynahaasi inuu xisbiga cidda u garto ka soo taago waa xisbigii kulmiya waa xisbulxaakimka inuu musharax tartami karaa ama wasiirada mida ha noqdo ama guddoomiyaha muuse ha noqdo ku madaxweynuhu u garto oo uu silaahay ladaad kaga tegi karaysa inuu soo taago waa waxay sugayaan dabadeedna doorashadiina madaxweynuhu meel bannaan iska dhigo dabeedna qabto taas waa ra'yigaaga wataa ta ii muuqataa een isla imanaysaa waa taa dabadeedna xisbigii wadani deebaanu naho tartankii aanu uga qayb galno dhinacayaga aanu qabsano aanu ka qayb galno markaa taan sugayaana wataa calaamadaha laftigeenuna dee aynu nidhaahna waxa caloosheenna ku jiro oo in musharaxiintii xisbigu dee ay gidaarka dhabarkiisa taagayeen aynu muujino aynaahna madaxweyne musharaxiinta xisbigu waa diyaare waanay dareensayin inaana jaraxnayne madaxweyne ka horta maadsantay su-aashaydu waxay tahay doorashadu dib moo dhacaysa doorashadu ku talagalka sharciga ah dee waa ilaahay dib u dhigay ilaa sharcigu mudduu madaxweynaha sharciga ah
sharciga marka laga hadlayo sida maanta muuqataa de hayo dhilay baa la dhigeli waa laga shaqeeyey waa lagu dagaalamay yaa ka shaqeeyey waa xukuumadda ka shaqeysay soo uga shaqeeyey waxay uga shaqeysay waxay haysatay muddo dheer dadkii xisbiyadu usoo magacaabeen inay komishanka ugu biiraan ayay muddo dheer haysatay dib baa loo riday waxay muddo dheer haysatay xeerkii diiwaangelinta markay keentayna waxay qas gelisay golihii wakiilada si aanu mudmadu golaha wakiilada geliyey bay xukuumaddu waxaan arkayay maxamed cabdo oo gudoomiyaha xeerka xukuumaddu soo gudbisay koobi baan helay baarlamaan deesa ma ahayn koobigan helay waxa weeye xukuumadda labaa u bannaan xeerka jira inay kaabisi wax ka bedel ku samayso iyo inay xeer cusub soo alifto labadaba xaq bay u leedahay xukuumaddu waxay samaysay xeerkii jiray diiwaangelinta ayay xeer cusub dadka usoo geliso laba xeer ay isku soo gurtay bay baarlamaanka keentay deedna qas baa baarlamaankii la geliyay marka qasku wuxuu ka soo bilaabmay xukuumadda dabadeedna ilaa baarlamaanku socday ilaa xeerka muddadii laysku haystayna waad ogeyd xeerka qaska bilowgaasina xukuumaddaa geliso waxaanay xaqu lahayn bay keento xeeraan amadmad iyo bedel iyo kaabisna aan ahayn xeer cusubna aan ahayn bay keentay laba xeeroo mid cusub iyo mid jiro la isku soo guray bay keentay oo magaciina soo bedeshay deedna miran baa bal akhri qoraaladii golaha wakiilada ay dib u saxeen oo yidhaaheen xeerkan xeer cusub baa ku dhex jira balaag markaa runtii qasku wuxuu ka bilaabmay xukuumadda waxaa loo gudbiyey xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka labada xisbi waa shanta kale dowladda xisbiyadu waa laba min xubin bay ku leeyihin xubintana waxa guurtidoo kale miyaana dowladda ka madax dowladday ka mid tahay xukuumadda miyaana ka madax laga hadlayo dowladda odaygii dowladduna waa madaxweynaha shan baa dowladdu leedahay dowladdu shan baa marka golaha wakiilada dowladdii kama mid ah meer dowla wakiila xubin kuma leh xisbi baan ka hadlaya anuu arrin xisbaan ka hadlaya labada xisbi ee mucaaradkii min xubin bay leeyihin labada xubnood madaxweynaha awood waxaa loo siiyey qofkii aan doonayn inuu ka saaro maalintii koowaad baa labada xubnood loo gudbiyey inteebuu haystay madaxweyne fadal iyo xubnihii loo soo gudbiyey muddo dheer waqti dheer baa lagu diray awoodaha madaxweynaha shan xubnood siiyey ee xisbiyadii mucaaradka ahaa laba siiyey waxay tusayaan madaxweynaha shuruucda dalka u dejisan waa qofka daayarka ugu sarreeya ummadda ayuu gacanta ku waa mideeya laakiin sharci dejinteed idinku jaangooyseenoo dastuurka iyo sistamka iyo xeerarka doorashooyinka lagu jaangooyey lahaanshaha madaxweynaha iyo golaha guurtida shanta xubnood warinta xeerarka waxay ka bilaabmaan dastuurkanay ka bilaabmaan muddo dheer baa lasoo dhigay dastuurka dowlad yaqaan ugu waana ayaa waqtigiisii dhisay allahu naxariistee maxamed ibraahim ciga dastuurkaa inaynu ku dhaqannaa kala bax way noogu filanta shuruucdii ka dhalatay dastuurka raacaysaana waa qaar ina kala hagi karaa laakiin buuqa iyo qasku ayaynu dheerrahay dugdhigaynu dheerrahay waxaynu dheerrahay ku doodista waxaan sharciga ahayn waxaynu maanta leenay sawtii riyaalo loo kordhiyey sawtiyada cidaal loo kordhiyey dee ma sharciga ahayd ma ahaydee waa diidi jirtay madaxweynuhu wuxuu u soo maray kursiga uu maanta gaadhay mucaarad buu dowladda soo ha wado qodax leh uu soo maray waan gartay maxaq baa loogu leeyahay amirkaa tuure maxaq baa loogu leeyahay madaxweynuhu muddadii mucaaradnimo muddada dhan soo maray ee qodaxda badnayd inuu isla dhagax ku rogo xaq looguma leh waxay ahayd war dhibtanaan soo maray inuu kuwa dambe dhibtii ka qaado si nidaamka dowladnimo aan u soo noqdo doorashada intaana ka bixin guddi midaynaysa mucaaradka oo arrimaha doorashooyinka iyo taladeeda iyo go-aamadeeda ka wada hadli doontaad qayb ka tahay sida aduu ii sheegtay guddigaasi maxay ka bedeli kartaa inay doorasho waqtigeedii ku dhacdo iyo in muddo kordhin la sameeyo oo golaha gudteeda muddo kordhin ku dhufta waxaanu sheegaynaa si cad inaynu doorasho waqtigeedii qabsanto xaqu leh ayaynu ku sheegayna waxaanu xusaynaa oo labaad haddii sharciga la waayo haddii xukuumaddu doorasho qaban weydo inaanu ka tashano waayo madaxweynuhu wuxuu madaxweyne igu yahay wuxuu igu maamulaa waxaan shalay adiga kugu xidhay waa dowladnimada iyo sharciga haddii laga gudbo oo nidaamkii laga tago dee maanta kuma xidhi karaa maxamed cabdeen madaxweynuhu muddo xidheedkiisii 5 sannadood bay ahayd xisbiyada mucaaradkee midoobaya ilaa madasha wada tashiga oo noogu ah waxaanu eegaynaa
madaxweyne muxuu doorasho u qaban waayey xaq sharciya laydinku leeyahay haddii jawaabtu maya noqoto waxaanu ka tashanaynaa tallaabadii kale ee laga qaadi lahaa ee laga yeeli lahaa ee lagaga arrinsan lahaa ummadda loo gudbin lahaa madasha wadatashiga maad aqoonsantihiinoo xisbigiin uu aqoonsan yahay maadaama xukuumadda khilaaf xisbi ahayn waxaan loo aqoonsanahay inay odayaal ruugcadaaya dalka u soo halgamay talada dalka iyo waayo aragnimada ku jirtaana ay u baahantay in laga faa'iidaysto xisbi ma aha laakiin waxa weeye waa xog iyo xaajo yaqaan meel wada fadhiya taladoodana waa weydiinaynaayo maxay idinla tahay baan odhanay aad baad mahadsantahay daawadeena waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena haladayg ood si toosa ugala socotaan telefishinka caalamiga ee home cable t v waraysigana waxaa igu wehelinaya oo toddobaadkan inoogu martiya maxamed nuur caraale duur aan inoo sii wada su-aalaheena waxaad ka mid ahayd xukuumadda waxaad dhaliil u soo jeedinaysaa xukuumaddii hore aad uga mid kahay ee adigu aad qeybta ka hayday wasiirka arrimaha gudaha aad ka mid ahayd ma la oran karaa dhaliishaada iyo dareenkaaga iyo aad waxyaabaha iminka xukuumadda aad ku dhaliilaysaa iyo madaxweynahaba waa dareen caro oo ka dhashay waktigii adigu aada wasiirka arrimaha gudaha lagaa qaaday ma lagu nisbeyn karaa maya runtii dareenkaasi horena igama muuqan oo muddo dheer baan xilka ka sii maqnaa iminkana igama muuqan alxamdulilah xilka intii alla ii qoray baan qabtay laakiin waxaan doonayaa hal qodob taariikhda iyo wixii xukuumaddani tartay iyo wixii ay qaladay waxaan doonayaa inaynu uga faa'iidaystaan xisbiyada dambe waxaynu dhaliili jiray xukuumaddii hore anaa dadkii ugu dhaliisha badnaa waad garanaysa ayaan dhaliili jiray waxaynu ku dhaliili jiray waxqabad la-aan waxaynu ku dhaliili jiray dhaqaale iyo sidanu tidhi oo may sharciyadii u marin waxaa lays yidhi ka faa'iidaysto xaggii waxqabadka waxoogaa dadaala baa dhacay laakiin dhinaca kale dhaliishu jirto iyana waa in la tilmaamaa xukuumaddaydii aan ka tirsanaa waxaan maanta u dhaliilaya inay ka faa'iidaystaan kuwa dambe wasiirnimo ma khusayso laakiin labay khusaysaa inaan ummadda uga faa'iideeyo inaan maanta xisbi ahay oo xisbi mucaarada aan ahay oo iyadana aan xaq u leeyahay inaan gudbiyo fikirkayga waayo dee siyaasadda anigiisi ilaayo meel kamaanaan wada bilaabin meel la wada dhigi mayno shalay saaxiib baanu ahayn isku xisbi baanu ahayn maantana waynu kala kala xisbi kala xisbi baanu waxaa timi shalay toore markaad xukuumadda ka mid ahayd haddii aad dareenkan arki weyday maanta markaad dibadda ka joogtad arkaysa daraad markaad dibadda ka joogtad xisbiga kulmiye ka mid ahayd eead xukuumaddii riyaalo dhaliilaysay ee aad lahayd sidan baa jirta markaad xukuumaddii gashay meel muuqan weyn shalay taariikhda taallay dee taariikh baa ka hadhaysa qof walibana dee siyaasaddu waa daad socda biyiha shalay halkay marayeen maanta maray maayaan taladaynu maanta ka hadlaynaa wata maanta joogto waxaynu daboonaynaa maanta godaloolada inoo muuqato inaynu ka hadalno shalay aniga haddii miisaan lay saaro marka wasiirka ahaana iyana waa taariikh qorantay waxay ku qorantay qalbigaaga iyo qalbiga dadko iyada kaba doodi maayo marka shalay wasiir baan ahaa maantana waxaan ahay xubin ka tirsan xisbi mucaarada oo codkeeda gudbinaysa waxaan u gudbinayaa in dhaliishana laga faa'iidaysto maantana doorashaynu ka hadlayna madaxweynaha muddaxileedkiisii waa lagu ixtiraamayaa inuu ka baxo sharcigiina dee waa la diidaya dee sharcigaa diidaye anigu ma diidayo adigoo mahadsan doorashaynu ka hadlaynaa wasiirka arrimaha gudahaadahay doorashooyin baa waddanka ka qabsooma doorashooyinkii golaha deegaanku ahaa dhibaataa ka dhacday dhiig baa ku daatay dad rayida baa ku dhintay gobollo kala duwan maroodi jeex ilaa iyo saylac duruufo adag baa ka soo dhacay waktigii aad wasiirka arrimaha gudahayd ma loo nisbayn karaa dhibaatadaa dhacday muddaxileedkaagii aada wasiirka arrimaha gudaha ku ahayd maadoomo amarka iyo fulinta iyo howlgalka ciidamada adigu ahay horta waxaa hubaala doorashadii golaha deegaanka inay doorasho adag ahayd oo dalka ay cidhiidhi iyo culays amni oo khatara ay gelisay sababtu waxa weeye waxaa laba mar aynu wada furray golayaashii deegaanka oo berigii hore liis ku soo bixi jiray ayaa la yidhi toosa loo doorto
deegaan kastana intaasoo qabiil baa ku hirdamaya bal su-aasha aan si fiican kuugu sharaxo intaasoo qabiil baa ku hirdamaya qodobka labaad weeye waxaynu nidhi ururadii baa dub loo furay ururadiina reer waliba wuxuu samaystay urur buu samaystay u gaara dabadeedna dalkii wuxuu galay waxaanu qaadi karayn roolkii wasaaradda arrimaha guduhu ku lahayd maxay ahayd markaa waxay ahayd sugidda amniga iyo doorashadu inay habsamay u dhacdo waxaan isleeyahay oon maantana ku qanacsanay iminkana aan ku leeyahay culayska jiray maalintaa ee doorashadaasi lahayd iyo waxa dhacay marka laysu eego waan hayaa rikoorkii waanu qoray wixii dhaco wasaaradda buug baan ka soo saaray waqtigaa marka laysu eego aad bay u yarayd dhimashadu ilaahay baa dadka kulahooda way dhimanayaan laakiin in dalku inaga baaba'aso kama culays weyna inaynu fogmanoo qaxnaaso kama culays weyna in doorashadu qabsoomi weydaaso kama culays weyna dhibta waxa taala laba dhibaato markay jiraan ka fudud baa dee la qaadanaya inay dhacaan raalli kuma yihiin dad dhintaan raallina kumaan ahayn mana jecli mana wanaagsana shakhsiyadeenna iyo mas-uuliyaddaan hayay midna kuma fiicna laakiin dhibaatadii waktigaa taalay marka la miisaamo iyo culayskay lahayd iyo inta dhacday waxay yimid dhibta maalinta ay keeni lahayd maantada laftigeeda taariikhdu dee way sii soconaysa laba doorashaa laysa saara madaxweynihii iyo baarlamaankii iyada laftigeeda annagu roolkaa waanu ka baxnay hal sanduuq qoob lagama qaadan hal sanduuqoo qoob laga qaatay ma jiro hal sanduuq oo goobihii oo qorshaysnaa aan gaadhin ma jiro meel walbana si nabadgelyaabay ugu dhacday waxaa sarraysay gacanta dowladnimadaa sarraysay waxay ka sarraysay in qofku sharcigiisa gacanta ku qaato in sharciga qofka gacanta uu ku qaato waxaa ka sarraysay gacanta dowladdu doorashada dayadaa qabanayso amnigeedaanu ilaalinayn amniga gacantaa xukuumaddu ku haysay waagaa waanan ku celinaya haddaan kuu sheegay amniga waagaa gacantaanu ku waxaad uga jeeda kuma haysan jeeda ma hadda dee doorashaba ma dhicino lama gaarino haddana way ku haysaa laakiin waxaa la eegayaa inu miisaami doonaa maalin doorasha dambe timaado taa mid la mid timaado ayaynu eegi doonaa bal waxa dhaca wax laga ilaalinayaa dowladdu waqtigaa roolkeedu yahay dowladnimadu waxa weeye qofku inaanay ummadda lagu sii dayn haddii maalintaa ummadda laysku sii dayn lahaa maanta nabadda iyo sheekada iyo tiifiyada iyo nimcadaa maynaan haysanin marka alxamdulilah wixii dhacayna dee waa adduunya maalin walba ma hawlaa laakiin waxaan qabaa hawl adag baanu maalintaa ka baxnay anaa dareemayo xilkeeda hayay kuwii ila hayayna way garanayaan waan gartay doorashada marka laga imaado guddida doorashooyinka qaybta ugu weyn ee farsamada oo dhan dhigideeda leh guddida doorashooyinka xisbi ahaan ma ku qanacsantiin guddiga doorashooyinka si kastaa ku yimaada mas-uuliyad baa saaran waana loo dhaariyey waana ku qanacsan si kastaa ku yimaada waddaday doonana ka soo galan madaxweyne labu magacaabay laba guurti baa magacaawday midna xisbulxaakimkaa magacaabay soo shan maaha mid ucid baa magacaawday midna wadani baa magacaabay waa toddobadaasa ummadda taladeedii loo dhiibay dadka loo dhiibay iyo dariiqa nidaamkeenu mariyo ee dhaara iyo mas-uuliyadda ummaddaa loo egmaday boqolkiiba boqoliyo dheeraad baanu kalsooni aad baad mahadsantahay su-aashaan doonayna ku weydiiya waxay tahay su-aasha muhiimka ee waktigan taagan guddoomiyihii golaha guurtidaa ka hadlay wuxuu sheegay dalku inuu nidaam iyo sharci leeyahay haddii doorasho waktigeedii ay suurtogeli weydo waajibka dastuuriga iyo xaqa dastuurkana ay ka gudanayaan waajibaadkooda hadalkaasi xisbi ahaan siyaasi ahaan muxuu yahay fasirkiisu ma weydiiseen guddoomiyaha guurtida haddii doorasho dhiceyda nidaamka sharciya u yaala nidaamka sharciya u yaallo guddoomiyuhu uu sheegay ayaan doonayna adii ku weydiin te inaad sida weydiisaabay anigu fasirkiina annaga aragtidayadu nidaam sharci oo dhigaya in doorasho la carqaladeeyo muddadeedii lagu dhaafo kii carqaladeeye kororsiyo lagu abaalmariyo kuma hayno shuruucda dalka waxaad saleebaan weydiisaa waddada sharci ee u taallo kororsiyo weydii dastuurka waa kaa horteyda yaalla editri baa lagu kordhin jiray taariikhda somaliland shuruuduu leeyahy editri haddaynu isaga laftigiisa raacno wuxuu leeyahay sababo cadcad oo ah colaad nabadgelyo daro aafo dhibaato dhulgariir waxaan dee aanaynaan qaadi karin dee intii midna ma jirto
markaa ma jirto sabab cad oo sharci oo guurtidu haysaa oo xukuumaddu haysaa oo xisbiyadu hayaan oo shuruucda ay noogu qoran ninka hayaa halkan adi soo fadhidaha soo fadhiista annay soo fadhiisa ninka haya sharci uu ku kordhiyo halkan soo fadhiisa waa la kordhin jiray way dhici jirtay haddii wax la xadi jiray maad xadaysaa haddii wax khaldami jiray maad khaldaysaa haddii waddada doorashadu dhibaato aydna dhibtii baad sii abuuraysaa haddii dimuqraadiyadda culays iyo aad kala kulantay culays kalead kusii daraysaa mucaaradiiniin iyo xisbiyada mucaaradkii dee colna maaha cadaawona maaha waa dadkii dhulka lahaa waa dad nidaam doorasho doonaya waa dad tartamaya waa dan hankii dastuuriga ahaa doonaya inay ummadda u taliyaan loona taliyo oqol waa maxay dhibaatada ku jirtaa dhibaato jirtaa oo maanta laysku haystaa ma jirto kororsiimo sharcilina ma jirto kororsiimo waxaan ummadda iyo bahda warbaahintaba u cadaynaya meel sharciga kororsiima sharci ay shuruucda dalka iyo dastuurka qaranka kaga qorantay ma jirto haddaan balaayo dhicin balaayo dhacdayna ma jirtee nimco ilaahay binu maanta ku haddii doorashadii tafaahumkeedii iyo farsamadeedii ay dhici weydo muxuu sharcigu dhigaya wuxuu sharcigu dhigayaa waa kaan kuu sheegay mas-uuliyad baa cidi saarayd mas-uuliyaddii ciddii saarayd ka soo bixi weyday hayse soo taagto alla maxaa ka badeeyo mas-uuliyaddan doorasho in la qabto cid bay saarayd mas-uuliyaddan cid baa loo igmaday cid bay dowladeediiyo madaxeeda saarayd madaxweyney lahayd fulin bay lahayd dowlad bay lahayd dowladdii iyo odaygeedii halkeebuu doorasho dhigay kursiguu iska fadhiyey maalintii doorasha soo dhowdayna waxaa la yidhi haddii la kordhin waayo waxba dhici maayaan maaha wax dhicidda adaa keenay hadday wax dhacaan xitaa waayo xaq baa lagugu lahaa inaad doorasho qabatee maxaad ku bedeshay marka waxaanu maanta ka arinsanaynaa oo xisbiyada mucaaradka ayay ummadda reer somalilan isweydiinaysaa waar doorashadii la qaban waa looma jeedo muddadiina ku qabsoomi mayso hadday dhici weydo maxay noo talaa waanu isweydiinaynaa badkaynaga taala talooyinna waa ka leena maxay noqon karaan talooyinkaana waa isaga imanayna oo kuusoo gudbinaynaayo insha allah xaflad baan dhawaan qabanaynaa xisbiga wadani ruuxid odayaasha madasha guud ahaanba waa isugu imanayna waa isweydiinaynaa waa ka soo qaybgelinaynaa dadkaana u gudbinaynaa waa gaadhsiinaynaa gardarrada waa muujinaynaa nin lana guudkay ka fuulaysa la wada yeelan maayo cid lagu ruuxruuxi karaa ma jirto jasiiradda siraayo ka madax bannaan ee somalilan ku taalla ee aanu isagu maamulin hay sheega aniga sharcigeedana hayso ma jirto dastuurkaa qaranku awoodda ummaddan oo dhan awoodda dalkan oo dhan awoodda dowladeedu madaxweynuhu madax uga dhig meel kaloo laga eegayaa ma jirto madax meel ka sarreysa oo la salaaxaana soomaalida tilaha ma jirto mas-uuliyaddii meel bay taalaay meeshii baa la weydiinaya waxaa la leeyahay madaxweyne halkeebaad lacagtii waa la bixiyey doorashada kii raashin bisi laga filayo yidhi dabkiina waan shiday biyiina waan keenay raashinkiina waan agdhigay ma anfacayso raashin bisin baa lagaa sugaya madaxweynaha lagama rabo lacagtiina waan bixiyey xaabadiina waan shiday waxaa laga rabaa madaxweynaha doorasha inaad qabato maalin mucayana ku qabato lagula tartamo doorashada waa intaa mas-uuliyadda la rabaa lacag maaha xaabadii maaha xasaskiina maaha waa doorashadii madaxweynihii qabtay xil ka furan mayso xaajo waran xilka ama furtaa leeyi haddaad tidhaaho xawl lagaa rabo oo aad ka waranto tidhaahdo sidanaan sameeyey xaajo ka waran inaad xaajadaadii ka warantaa xilkaa furan mayse xilkiina inoo qabsoonayo maxamedow doorashada inoo haysaa mise inooma haysa wasiirka arrimaha gudaha hore wahay ammaanka o dhan baad qaabilsanad wadanka ciidamadii aad dhistay baa qaybkaas sida aardyuda duruufaa laga tirsadaa ciidamada qaar ka mid a sida guryaha habeenka loo dho oo ammaanka lagu salleeyo adigaa jideeyada oo dhisay oo guryaha habeenkii daadashadooda hawlgalkooda dadkii fadhiya baad ka mid ahay bal ammaanka waktiga shaqada joogtay iyo iminka maxaa u dhexeeya horta ammaan baan ka waramayaa ciidamadana waan ka waramaya ammaanku waa saldhigga nolosha somalilan ilaahay baa ku mahadnay waxaynu ilaalin karna maahee allah wuxuu inagu gargaaray inaynu dhib ka baaqsano ilaahay baynu ku mahadinay markii mas-uuliyaddeeda lay saaray mas-uuliyad fudud ma ahayn mas-uuliyad culays badan igu haysida waxaan dhisay ciidamo qaran cudud in lagu kordhiyo
nabadgelyada waxaa lagu ilaalin karaa horta waa nabadgelyo shacabku ilaashado shacabka waa hambalyeynay muddadii aan joogin oo ila shaqeynay laakiin dowladii dee shacab baa nabadgelyadii ku maqan ku seexan maysee cududii nabadgelyada ilaalin lahayd waa in la dhisaa cududaa dhisan hore qaarna waan kusoo kordhiyay kuwa dhisnaa dee intii maamulkayga hoos tegi jirtay waan kula shaqaynayay laakiin hay-ad cusub oo ka baxsan intii dee dastoorku qoray RRU booliskay ka mid tahay ciidamadii booliska ahayd laakiin waa unit gaara oo u tababaran hawl gaara maantaan sharaxay RRU anaa sameeyey waqtiguna inagu yiri RRU anaa sameeyey RRU waxaa loo sameeyey baahitimi ayaa loo sameeyo adduunyadii cabsi cusub ayaa ku soo kordhay cabsidii cusbayd waxay u baahan tahay qaabkii loola dhiilgarayn lahaa iyo ciidamadii u tababaraa ciidamadana cududan ciidan baa loo tababaray waa cudud ciidan aniga ima raacina qarankaan uga tegay magacna way tahay ciidamadana ilaa maanta horena waan ugu mahadnaqaa maantana waan ugu mahadnaqaya waayo nolol yar bay ku shaqeeyaan cududaasi warba annagu warkeen kama lihin laakiin qabashadaanu leeyahay cududaasi waxaa amar la siiyaa oo amarkeedu kala sarreeya ilaa wasiirka amniga ilaa halka uu hooseeyo taliya unugaa haysta amarkaasi dhaadhacaya ilaa wasiir ka soo bilaabmaya halkii cabsi lagu sheego ee cabsi la tacalluqda hawshaa saaraya lagu sheego waa inay galaan ciddii doontaa ku jirtay ilaahay mucaawa duur ku jiro waa inay galaan qabashada hay-adda wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay qabashadaasi inay xaq ahayd iyo inay xaq darro ahaydna garsoorkay u taalla marka maanta inaynu dad qabqabanay oo dad xidhxidhnay waa shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha hayaabaha looba irtaa Soomaalidu maamaha ka gaarsiinayeen islaantii ilmaha yar laga tagay waqtiga nagu yar nin kasta wasaaradda hayaa waxbuu xidhaya xarig iyo qabashada wasaaradda arrimaha gudaha leedahay garsoorka iyo cadaaladiisana wax gaaray noo leedahay marka ciidamadaasi waa ciidamo cid kasta u baahan ka mucaaradka dhalila xaq ugu male ciidamada inay dhalila soo dan kala tirsanay waa nin yar oo qaafila ayaa ciidamada dhalila maayo dibbay qabaanoo way waa cidda keliya ee aan qaybsanin markaynu xisbiye iyo qolo iyo jin u qaybsanno way ku ammaanayeen nabadgelyadeennana kuwa direyska gashan ee ku baahan baa ayaa dusha ku sida marka ciidamada weli waan ku faanayaa inay jiraan joogaan waana saldhigga dowladda aad baad mahadsan tahay maxamed nuur caraale duur wasiirka hore arrimaha gudaha waxaynu ku jirnaa su-aalihii labadii saddexdii su-aaladii ugu dambeeyey barnaamijkeena haladay aan kuu soo koobo maxaad ku dooratay waddan waxaan ku doortay wixii aan shalay kole kulmiye ku doortay shalay waxay iila muuqatay kulmiye markaynu dowladdii udub ee dee xukunka haysay udubaad hore uga tirsaneed anigu aan ka tirsanay ka soo baxay aanad qarinay waxaan ka dhaqaaqay udub waan sanad keliya baarlamaanka ahayo mucaarad baan u qabay waxaan arkay in isbeddel loo baahan isbeddelkuna waa taayir wareegaya waxaan is idhi xisbiyada kiibaa ugu dhow oo isbeddel samayn kara waxa isbeddel samayn kara oo ugu dhowaa xisbigii kulmiye waana ku guulaystay maantana waxaan is idhi xisbiyada keebaa ugu dhow oo isbeddel samayn kara wadani baan is waxaan is idhi talada hayso iyo wixii idinka qalloocday anigu taariikhda iyo magacayba waxaan ku sheekeeyaa inaan xukuumadda la magacahay kamaba magac duwanay laakiin waxaan doonayaa inaan kuwa la yidhaahdo waxaana naga khaldamay ku biirsada waxaanan u arkaa cidda ugu dhow ee isbeddel samayn karta ishii aan shalay kulmiye ku arkayay ayuuban maantana wadani ku arkaa wax ka hooseeya oo laga eegaana ma jirto ma laga eegi karaa arrintaa inaad qoystihiin guddoomiyaha xisbiga oo arrintaas ay sababtay inaad xisbigaad ka mid noqoto maxamedow sanadka maanta ah waxaa soo baxday aafo waxaa la yidhahaa qabyaaladii baa soo baxday soo ma saasaa la yidhaha nin waliba wuxuu beero ayuunbaa dee baxa miyay u horeysaa oo maanta kow tahay xisbi hoggaankiisa guud dad la haybi ay ka mid noqdaan ugama horeyso ciddii ku tanaaday haddii qabyaalad lagu tisqaaday waa xukuumadda kulmiyadee intii koowaad ee taageeradiisa ahayd iyo ka soo jeeday meel madaxweyne gar adag isku soo xiran miyaanaynaan durbaanka wada halkii ka yara sarraysay imka magacaabimayne miyaanaynaan tubin maxaa loogu eedeynayaa ciro xisbigiisa waxaa ku jira anigu iyo qaar kaloo ay isku reer noqon karaan waxaa kaloo ku jira
qaar kale oo somalilan oo dhan ka kooban xeer gaarina igu qaban maayo maxaan magacaabay xeer gaari igu qaban maayo ka sugaysa loogu degi maayo maxamedow raadkii shalay waa cadiyo hoon cable t v ayaan garanaya waa taynu yalowda noqonay yalow waa taynu noqonay ololihii waxaan doonayaa maantana inaynu orange noqono waa halkan inoogu xidhane maantana orange nooga dhiga si aynu isbedel u samayno hadduu berri ciro xilkiisa gudan waayana aynu duufaan kale ku kicino si geediga iyo nabadda somalilan inoogu dhisnaato markaa aan soo koob aan weliba dib u cadeeya waxaan dib ugu cadeynayaa xisbiga wadani xisbi qaran somalilan oo dhan baa ku jirta wax diidayaa ma jiraan in xisbiga ay ka mid noqdaan qaar ay ero isku beeliyihiin sida anigoo kale wax diidayaa ma jiro sharciga diidayaa ma jiro durbaanadana in hadduu qodayn iyo tabcado quulo iyo jeelin in la geed quwaaxumo bixiyo qariyo saytuun haddii tacabka qabyaalada maanta midahooda baxeenna waa kuwa kuwiya beera qaar kale may bixin aynu ku soo noqono aynu halkaa kusoo noqono siiraanyo waxaa tiri dad baa ku xeeranoo talada dhinac kala siinaya mana oran karin adigu laftaadu waxaad u sacabatumanaysaa inaad talada hadhow toolada gundaha aada noqoto xisbiga wadani haddii talada dalka war oran kar wallaahi calooshayda waxay berri noqon doonto garan maayo calooshayda waxaa ku jirta waxa maanta muuqday inaynu bedelo maanta waxa muuqday inaynu bedelo ero kula talaayo maxamedow afar isku haybo aniga iyo aan ka mid ahay ama qaar kale ka mid yihiin haddii berri ilaahay xilka u dhiibo weligii kula talin maayo inay ku xeernaadaan waana waxaynu doonayno inaynu maanta bedelo maanta waxaad arkaysaa ero qaar qaba socdo markaasaa la leeyahay maxirsiga eraa waa wax cusuboo soo baxay maxaa keenay waa wax cusuboo lagu yiri xukuumaddii riyaalona xirsi ma jirin tii ina cidaalla ma jirin maxaa maanta keenay xisbigaad ka wada mid haydeen waxaad ka wada mid haydeen wartii ururada kaligaa madaxtooyada qabaan odhanaynaayo hadday qaar raaceen waa in qaara lagaga reeba aad baad mahadsantay su-aal kalan ku weydiinaya ugu dambeyntii xisbiga marar kala duwan siyaasiyiin baa waxay ku eedeysaa inuu xidhiir la leeyahay soomaaliya arrintaa maxaa ka jira dee kuwaasi ha caddeeyaanoo sababta ay u leeyihiin soomaaliya xidhiir la leeyahy ma ciraa ma qaar kaloo joogaa maxay caddaynayaan caddayntooda hala yimaadaan annagu intaanu ognahay xisbigani cirana ilaa maalintu dalka yimi somalilan buu jooga intaana siyaasadda hoostu ka soo bilaabo maalinba geedkay maraysay ayuu jooga dadkeennu waxbay iska yidhaahaan markaa dadkeennu wax iska yidhaaheen un baan u qaadanayaae soomaaliya waa dadaynu walaalanahay laakiin xaydaabka dowladnimo waa ku qaybsanay ogi maxamedo mana jiro mana ogi mana filayo ninka ogi halkan ha yimaado bruufkeedii de ha keeno laakiin yaanu faqiyo dee ku sheegino dadkeenna in wax iska sheegaa waad ogti wax alla wax ka jira aad baad mahadsantay waktiga dartii aad iyo aad baan ugu mahad celinaya wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane maxamed nuur caraale duur horena uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan gaar ahaan golaha wakiilada xogayaha guddida dhaqaalaha ee golahaasi wakiilada imikana ah siyaasi ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo stuudio home cable t v inoogu martaya barnaamijkeena haladay intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waa farsamadii iyo habeyntii xasan siyaad iyo weliba cabdishakuur day maxamed waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdiiliga waxaad toos ugala socoteen home cable t v tan intaynu ku kulmi doonaa haddii allah ugu dareera barnaamijka xiga waxaan ku dhaafay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi aad baad mahadsantahay